السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بني والسلامية. أنا قاعد دي جي مصطفى. channel كان داونا سنة ودي جي مصطفى official. channel كي ما تروح كسو كردي. ما قاعد هروح عن تري أول دي جي مصطفى لكن ما تروح كدي دي جي مصطفى official وحن كسو دري official. مركب ما تلاقي بلاو channel كي بروح عن دي جي مصطفى official. برنامج كنا برنامج ده هو كدوية هاي. برنامج كنا ما تروح كسو أبسين هاي وسؤال يجاوبه. سؤالها ay soo weydiiyeen dad badan oo kamid ah taageerayaasheeda iyo dad aad u yaqaan iyo dad badan oo jecel inay nolosheeda qayb ka ogaadaan wax ka ogaadaan marka barnaamijkii maanta waxaan ugu talagalay dhowr qaybood oo soo kala qaatay maanta waxaan rabaa qaybta koowaad inaan ka hadalno qaybtaas oo rabno maanta inaan guda galno qaybta koowaad waxay u dhacaysaa sidaan su-aasha ugu horeysa dadweynuhu ay soo weydiiyeen waxa waaye wadankay ku nooshahay waxaan ku noolaa dalka Mareykanka gaar ahaan Seattle Washington waa dalka Mareykanka waa America gaar ahaan Seattle Washington su-aasha labaad baa sidaan u dhacaysa qof ayaa wuxuu soo weydiiyey xagee ku dhalatay waxaan ku dhashay Soomaaliya gaar ahaan Gaalkacyo waliba xaafadda Israac su-aasha saddexaad qof baa wuxuu soo weydiiyey meeqo ilmo ayaa leedahay waxaan leeyahay 2 ilmood oo kala ah Saabir iyo Saabrin sawiradooda waa kuwan inta saaran orada waxaan ballan qaaday dadka magacyadooda inaan screen-ka soo saarin oo su'aalaha ay weydiinaya taas waa ballan aan ka soo qaaday dadka asxaab kamid ah waxay ugu dheer maadaama su'aalahan ku soo weydiinay magacayga screen-ka soo saarin su-aasha xigtaa waxay tahay qof ayaa wuxuu soo weydiiyey ma laga yaabaa inaad timaadid Australia waa Australia waa wadan aad u fiican waa wadan aan jecelahay waa wadan dalxiis ku fiican waana listiga igu jira oo dhinaca vacation-ka shaqo ahaan waa laga yaabaa inaan u imaado Australia waa laga yaabaa inaan imaado su-aasha xigtaa waxay tahay goorma ayaad bilowday DJ-ga DJ-nimada waxaan bilaabay hadaan u fakaro هذا وقتي أنا فوقين ديجي نمد waxaan bilaabay 2012 laakiin active waxaan noqday markay ahayd 2013 kii ayaan active noqday laakiin 2012 ayaan bilaabay dj nimada laakiin active ahaan waxaan noqday 2013 kii qof ayaa wuxuu soo weydiiyay yaa ku gula taliyay inaad dj noqotid yaa ku gula taliyay qofna igula ma talin inaad dj noqdo ani ayaa iga go'day marka badanaa markaa rabto inaad wax noqotid aad marka hore waa inay kaa soo go'daa ka bacdi samee waxaa rabto inaad noqotid marka DJ-nimada ana iga soo go'day qofna igula ma talin inaan DJ noqdo oo aan horta is ogaado inaan DJ noqon karo ama meel gaari karo marka aniga baa iskula taliyay su-aasha xigta ayaa waxay tahay maxay ahayd shaqadii kuugu adkeyd ee DJ-nimada horta shaqada igu adkeyd DJ-nimada aan sameeyo horta way badan yihiin oo ma soo koobi karo laakiin waxay ahayd shaqada igu adkeyd DJ-nimo aan sameeyo waxay ahayd hadda ka hor ano aroos qoliyo Mexican ay leeyihiin DJ ka ah taas ay igu adkeyd because luqadda aan play garanayo luqad Mexican bay ahayd aniga aad uma aqoon marka taas ay igu adkeyd maadaama luqadda Mexican ka aan aqoon because always waxa fiican DJ marka tahay waxaad play garanaysid inaad taqaanid inaad og tahay su-aasha xigta ayaa waxay tahay goorma ayaad DJ-nimada iska dayn qof ayaa wuxuu soo weydiiyey goorma ayaad DJ-nimada iska daynaysaa hadda la joogo waqti iima go'ona inaad DJ-nimada iska daayo laakiin insha Allah markaan goolkaan damacsanahay gaaro waa laga yaabaa inaan iska daayo DJ-nimada laakiin hadda waqti iima go'ona qof ayaa wuxuu soo weydiiyey ma laga yaabaa inaad fanaan noqotid su-aasha dhowr jeer igu soo laalaabatay dad badan baa soo weydiiyey Snapchat-ka Facebook-ka Instagram-ka shakhsi ahaan personal ahaan meel badan baa la iga weydiiyey dad badan waxay dhaheen fanaan baa qaab fanaan aan leedahay fanaan noqotid may fanaan lagama yaabo inaan noqdo codkiiba ma lihiba fanaannimada fanaanba ma noqon karo marka daawadayaal maanta su-aalaheena jawaabaheena intaasay ku egyihiin ayo marka barnaamijkii hore aan sameyn jiray barnaamijyadan aan soo wado wuu ka duwan yahay
marka aad baan idin wada salaamaya dhammaantiin asxaabteyda taageerayaashayda familkayga marka familkayga waa fanskayga aad baan idin wada salaamaya dhammaantiin